بسم الله الرحمن الرحيم كلتو waxaan wanaagsan dawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran channelka ku soo dhawaada qodobada wararka aan idil wadaagay caawa qodobadan idii hayna waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo aqbaleen ugu dambeyn midowga musharaxiinta waa waantii u dhawaanaha ka waday dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka tirada ciidanka gorgor oo isbuucan hadalheyntii ugu badneed social media iyo ugu dambeyn qodobadii sportska kubadda cagta caalamka oo aan idin soo gudbinayo kulamadii ugu dambeeyay ee Champions League la dheelay caawa iyo xalay intaan soo gudagelin saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe garee channelka hadii aad nagu cusbeen fadlan la sii wadaag saaxiibadaada like tana saar muuqaalka kuna soo dhawaada qodobadii faahfaahsan wata aan ku bilaabo qodobka koobaad ee sida ay xaqiijiyeen ila wareedin ugu kalsoon yahay waa waantii laga dhaxwaday midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen ayaa ugu dambeyn caawa lagu guuleystay maalinta biri ah kulan qada ah ayaa lagu balansan yahay hotelka Decaale ee ku yeelan doonaan midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha madaxda Galmudug iyo Hirshabelle oo ayagana lagu wado inay ka soo qayb galaan kulankaasi waxaan la ogeyn ilaa hadda inay jiri doonaan qodobo lagu heshiiyay hadii la baajin doono mudaharaadkii ay ku baaqeen midowga musharaxiinta kaasoo loogu gal lahaa ee looga soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya ee xilligeedu idlaaday dhanka kale tan dawladda ay mamnuucday ay tiri wax mudaharaad ma jiro ilaa hadda lama oga inay ku jirto qodobada iyo heshiiska waas la arki doonaa biri wixii ka soo baxo qodobka kale xigo aan raba inaan idin qaada dhigo saaxiibada qiimaha badan waxay tahay inaan idin soo gudbiyo waxa aad iyo aad hadalhaynta u batay social media ciidamada gorgor marka la eego ciidamada Soomaaliya hadda ay leedahay ciidamada ugu awooda badan ama aan isdhihi karno dawladda Soomaaliya way ku xisaabtamay karaan caasimada online oo la hadashay madax ka tirsan gorgor iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in ciidankani ay u dhaxeeyaan 1000 ilaa 1500 ilaa 2000 oo askari sidoo kale saraakiisha ayaa xaqiijiyay in ciidankan ay ka mid yihiin ciidamada ugu qalabka iyo tayada wanaagsan marka la eego ciidamada Soomaaliya ee dhisay maca kuwa booliska danab iyo dhammaan ciidamada oo idil waxay haystaan hubka culus mid fudud oo casri ah gaadiidka gaashaanan qaarkood rasaasta karin iyo tababaro casri ah waxaana soo tababaray isla markaana qalabkan iyo hubkan siiyay waa dawladda Turkiga oo garab weyn ka siisay dawladda federaalka Soomaaliya gorgor qodobka intaas ayaa isaga ugu soo gabagabeynayna markaana aan u gudagulno qaybtii sportska daawadayaal kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dhawaanahanba la daala dhicisay aad iyo aadna ugu liidatay marka la eego horyaalka la liigaha ayaa caawa la dhashay kooxda Elche isla markaasna Foda Israel ugu horeyntii kaambiyada horeeyay waxa lagu soo kala dhamaaday ever 0-0 kaambiyada dambeete ciyaaryahanka sida caadada ahayd ba dhabarka u dhigan jiray kooxda Barcelona ee reer Catalonia ee reer Argentine Lionel Messi ayaa daqiiqada markay ahayd 48 ayuu u dhaliyay goolkeedii ugu horeysay oo Camp Nou ay ku dhaliyeen waayahan Camp Nou xaalad adag ay ku jirtay Messi ayaa 48 daqiiqo markay mareysay gool u dhaliyay waxaana caawiyay Bart Wade ayaa caawiyay isla markaasna wuxuu ku siiyay habkan aad u jeedaan ciribta dhaxda kubadda waxay kubad dhaxda laga soo dhisay isla markaasna Bart Wade ayaa soo gaartay Bart Wade-na wuxuu u dhiibay Messi-na sidan ayuu u dhameystiray sida caadana fursadahan oo kale haduu helo hore ayuu ka dhameystiraa sidoo kale isla gool labaad ayuu Messi u dhaliyay kooxdiisa garoonka Camp Nou xalata kubaddan labaad waxa siinaya ciyaaryahanka Frenkie de Jong waa ciyaaryahanka reer Hollandees isla markaasna ay ka soo qaateen kooxda Ajax ee qadka dhexe kaga ciyaara ciyaaryahanka Frenkie de Jong ayaa dhaxda ka jeeday kubadda isla markaasna Messi ayuu ku salamay oo kubadda u dhiibay Messi-na sidan ayuu u dhameystiray goolka ugu dambeeyay ee saddexaad ee guusha ay ku raacday weyn ee aad ugu baahnaayeen reer Catalonia waxa uu dhaliyay Jordi Alba halkaas ayaana ciyaarta waxay ku soo idlaatay 3 gool iyo waxba oo ay u suurtagelisay inay soo gasho kaalinta saddexaad la liigaha ee kooxda Barcelona markaana waxa uu kaceynaa qaybtii Champions League oo ahayd mid aad iyo aad kaga duwan caaw ciyaarihii horeete
kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay si dirqi ah ay kaga badisay kooxda Atlanta waxayna ku soo idlaatay ciyaartaasi 1-0 oo ay kaga adkaatay kooxda Atlanta ee reer Italia. Man City waa koox la qaban la ayaa isla markaasna Premier League hoggaankeeda heesa 19 jeer oo isku xigto ayaan laga badin waxayna caawa 2-0 dirtay Borussia. sidaas ayayna lugti koobaad ee Champions League ay kaga badisay 2-0 Borussia oo ay gurigeeda ku dheelaysay. Atlanta gurigeeda ayaa 1-0 lagu diray. waxaa sidoo kale xusud mudo habeen horeetay ciyaarihii la dheelay Bayern Munich inay 4 ay kaga adkaatay 4-1 ay ku soo idlaatay ciyaartii Lazio dhaxmartay. Atletico Madridna waxaa 1-0 ku muquuniyay kooxda Chelsea. ciyaarihii Champions League iyo wararkii ugu xiisaha badnaa ee Soomaalida intaas ayaan ku soo gunaanudaya. inta barnaamijkan oo kale taa ku gulbi doono waa walaalkiin wari indho soo idile. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.